macaamiisha kulley kamaanu dadkuna lamay soo wada haleeleen annaguna meelaan isugu keenno maanu helleen waxaan leeyahay qof waloo meeshaad aad joogto ayaanu kuugu mahad celinaynaa oonu ku leenahay aad baad ugu mahadsan tahay inaad adeega soo qaadato inta soo socota ee aanu jecel lahay inay nagu soo biirtana waxaanu leenahay sidaa milgaha le ee intan nala joogtaba aanu u sharfayno ayaan idinkana idiin sharfi doonaa waan idinku soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo adeeg idin qanciya oo runtii wax badan kasii odhan maayo waayo tiimkaygii iga horreeyey ayaa aada u taataabtay waxaanu ku hayno meesha markhaatina idinkaa ka ah runtii shirkaddan soog iyo somcable mahadi ha ka gaadhee runtii waxaa mar walba mahadda ilaahay ka sokow leh ganacsadaha runtii isagoo oo aan ku jirin fielkan telecommunicationka oo ay jiraan weliba cid badan oo faa'iido ka samayso oo magaalooyinka iyo waddankaba ka shaqeeya inuu u badheedhay inuu hantidiisii dhulka hoostiisa geliyo oo runtii mahad badan iyo dadaal badan kadib keenay adeegaa fiber optic ah ee dunidiina la tartansiiyey sidii cabdirasaaq iyo tiimamkii iga horreeyey sheegeen waxaynu aragnay baahida loo qabo in dunida lala jaan qaado ilaahay haynaga dulqaado xanuunkii dhawaanina aafeeyey waxay ahayd fursad soo ay kaga faa'iidaysay awooddeedii oo dadkiina dhibaatadii haysatay sidii ilaahay ka sokow ay kaga dulqaaday oo qof walba meeshiisa ay ku raali gelisay hadduu waxbarinayay iyo haddii uu shaqaysanayeyba sidii baananu diyaar ugu nahay inaanu mar kasta idin garab gallo idinka ka macaamil ahaan oo aanu nidaamno wixii ay u baahantihiinba waan idin diyaarinayna caawa xafladani waxay daaran tahay sidii hore loo sheegayba intii barnaamijkii 3 bilood soo socday shalay toolaa markii qorituurku dhacay baan waxaan sheegay waxaan nidhi shirkaddayadu keliya may noqon shirkaddii wax idinku soo celisay balse waxaanu dadaal oo aanu gelinay inna lagu daydo oo shirkadihii kale aanu idhaahno war dadkan waxun baynu ka buraynaa waxaynu ku celino taasi macnaheedu waxa weeye waxa wanaagsan in la iskaga daydaa iyada laftigeedu waa dhaqan wanaagsan waxaan runtii aanan hilmaami karin waan aad ugu mahad celinayaa guddidii runtii sida habboon ee wanaagsan dadka usoo maaragtay nasiibka ugu qaaday oo runtii iyagana cabdikariim baxaan ka hadlaya markhaatiga ka furay sistamkii cadaaliga ahaa ee runtii cid wal oo customer noo ahayd bajanis ay u ahayd inay ku guulaysato wixii aanu bixinaynay waxaan leeyahay inta guulaysatana ilaahay haydin barakeeya waxaad hesheen inta aan guulaysanna waxaan leeyahay janis kasta oo soo socda waxaad ka mid noqon kartaa guulaystaha soo socda dhammaan shaqaale weynaha soo iyo somcable runtii waxaa laga yaabaa maalinba ninbaa meesha imanayay oo maamulayay ama ka shaqaynayay laakiin iyagana waxaanaanan hilmaami doonin ciddii xadhigga koowaad meeshii laga soo qaaday dhulka gelisay ee maanta somalilan soo gaadhsiisay oo runtii mahad weyn iyo sharaf laga mudan haddaanu maamul lahay waayo haddii aanu dhulkaa la soo qodin oo aan xadhiggaa la keenin waxaanu dadka dheerahay maanu dheeraaneen iyagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin